kadib withdraw waad dhahaysaa, lacagta la baxaysaa. Marka lacagta la baxdo wuxuu ku weydiinaya please add your withdrawal address. Addresskaaga halkaa lacagta ku shubaysa ayuu ku weydiinaya. Marka Binance ama OKX kolba kii aad haysato ayaad ku shuban kartaa lacag. Deposit ayaan dhahayaa. Kadib USDT waan dooranayaa. TRC20 waan dooranaya networka. Kadib addresska ayaan soo copy gareynayaa. Addresska ay lacagta ku dhacayso ama aan ku shubanaya ama aan kula baxayo soo copy gareysanaya. Kadib edit now. Kadib addresskii ayaan kusoo paste gareynaya halkan. kadib halka transaction password buu weydiinaya. Waa passwordkaan samaysanay markii ugu horreysay diiwaan gelinaysay. Transaction password baa waa passwordka lacag la bixista markaa. Okay, transaction passwordkii ayaan gelinayaa hadda. kadib waxa aan leeyahay submit baan dhahayaa markaa. Iminka addresskii ayaan ku buuxbuuxinay laakiin weli lacagtii maynaan saarin. Hadda lacag la bixista waan samaynaynaa. Amountkii qiimahan lacagta in la baxayna waa $9 maadaama qofkan $60 ku shubtay markasta uu video daawado maalin walba $9 buu helayaa markaa. Okay, passwordkii lacag la bixistaan gelinaynaa. Okay, submit baad leedahay markaa. Okay, lacagtaasi sidaasay kaga baxaysaa barnaamijkan. Hadda waxaan sugaynaa inay lacagtii markaa inoo soo dhacdo. 1 daqiiqo ilaa 2 daqiiqo gudahood ayay lacagtu kugu soo dhacaysaa. Okay, waad aragtaan lacagtii way soo dhacday. Binance-gii ku soo dhacday. Lacag $9 soo dhacday. Qofka hadduu $60 ku shubto $9 buu helayaa. Laakiin dad wax ka badan ku shubato lacag ka badan baad helaysaa.